بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد waxaynu ku dhex jirnay masaa'ilkii ama axkaamtii ku saabsanay bisha Ramadaan iyo soomka waxaa sunna waalidkii inuu caruurta faro soomka oo uu ku dhiirigeliyo oo uu ku abaabulo waxay leedahay saxaabiyadda la odhan jiray mucawid allaha ka raali noqdo caruurta yare waanu soomin jirnay intaan ramadaan waajib laga dhigin soomkii cashuuro la odhan jiray wax yar ay ku ciyaaraan ay maaweelo ka dhigtaanna waanu u samayn jirnay oo waa siin jirnay markay gaajoodaan jeeroo laga gaadho ilaa intay afurayaan waalidka qaarkii waa laga yaabaa carruurtii oo jecel soomka inay uba diidaan taasina sax ma aha waayo tarbiyada ilmuhu aada bay muhiim u tahay ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara macnaha waa tarbiyadii ilmaha yari marka uu la qabsado soomkiiyo salaada isagoo yar waxaa laga yaabaa inuu ku barbaaro oon u fudaysanin waxaa masaa'ilka ka mida qofkii gaalka ah markuu soo islaamo ama ilmihii yaraa uu qaan gaadho ama kii waalla uu miirsado qofkii maskaxda ka xanuunsanayay maalin ramadaan bartankiisa dee maalinku markuu bilaabmay soom kuma waajib ahayn laakiin saddexdoodiiba wixii soomka u diidanaabaa meesha ka baxay maalinka dhexdiisa ma waxaa ku waajiba maalinka inta hadhay inay afhaystaan oo aanay waxba cunin mise waxba iska cuni karaan labada arrimoodba waa la yidhi laakiin dhib ma laha hadday wax iska cunaan waayo maalinkan isaga ah soomkiisu waajib kuma ahayn lam yakunuu min ahli lwujuub dadkii soomkani ku waajibeen ma ahayn masaa'ilka waxaa ka mida qofkii xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanayay hadduu mararka qaarkood yaro xanuunsado waasho mararka qaarkoodna miyirsado xaggeeba la raacinayaa maalmaha uu xanuunsanayo soomkii waa ka dhacaya maalmuhu caafimaad qabana soomkii waa lagu leeyahy mararka qaarkood junuunkii baa ku dhacaya wuu xanuunsanaya mararka qaarkoodna waa soo sahlanaanaya sidaasoo kalena waxaa qofkii suuxdinta lahaa en waali caadiga lahayn xilku wuxuu saaran yahay in qofkan kolka uu miyirsado masaa'ilkaa waxaa ka mida man maata ahnaaءa الshahri falaysa calayhi walaa calaa awliyaa'ihi asiyaam qofku bisha ramadaan dhexdeeda hadduu dhinto isagiina soom laguma laha dadkii xigtadiisa ahana kama soomayaan kol haddaanu fursadba u helin oo qofka waxaa lagula xisaabtami lahaa inuu ama soomi karayo ama soo qallayn karayo labadii midnaba ma jiraba ramadaan dhexdeedii buu qofkii dhintay fursad uma helin inuu soomo fursadna uma helin qalle isagiina waxba laguma leh ehelkiisiina waxba laguma leh masaa'ilka waxaa ka mid a masalada 15aad qofku haddii uu soomkaba ka jaahi lahaa inuu waajib yahayba ama cunaduba inay xaaraan tahay ama galmaduba inay xaaraan tahay ayuu jaahil ka ah maba yaqaanaba laguma yeelanayo cibaadadaa soomka ah laakiin waa haddii uu ku noolaa waddamada gaalada dhexdooda ama dhowaan soo islaamay oo wax cilmi iyo aqoona aanu hayn waanay dhacdaa maalan dadkeenna debadaha ku nool dhallinyaradoo kale waxuu sheegaba inaanay arag
kadibna uu yidhaahdo maba ogeyba sinada ma aqaan inay xaaraan tahay soomka ma aqaan inuu waajib yahay waana ka dhab laakiin qofka dadka muslimiintaa dhex jooga ee wax weydiin karaya waa loogu cudurdaari maayo masaa'ilka waxaa ka mid a qofkii musaafirka ahaa waxaa culimmadu isla waafaqsan yihin inuu xaq u leeyahay inuu afuro oo bisha ramadaan uu iska cuno dhexdeeda waa dee masaafadda uu soconayaan haddii ay masaafad safar loo tixgelinayo tahay oo masaafad xoogaa ahoo dee waata lagu qiyaasa had iyo jeer 80 kilomitr in qofku marka uu intaa soconayo safarkiisaasi wuxuu u banaynayaa inuu afuri karo cunadana wuxuu bilaabayaa markuu ka baxo magaalada kolkuu ka baxo uu dhaafo inta camiran ayuu bilaabi karayaa inuu soomo inta laakiin magaalada uu ku dhex jiro ma jebin karayo soomka ila ilaahay wuxuu yihi faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka goobjooga ee reerkiisii jooga ha soomaba ilaahay amar uu ku siiyey qofka isaga ah soomaya sharkaasi waa shardiga labaadna waa inuu magaalada ka baxaa shardiga saddexaad safarkiisaasi waa inaanu ahayn safar ilmacsiya safar uu ku dambaabayo safar dembiya buu ku socdaa qofki xaaraan buu u safrayaa ama xaaraan buu ku safrayaa waa qof dadka dhibaya ama wax dulmiyaya kaasi looma banaynin inuu afuro hadduu xataa sooman yahay ruksad ma helayo shardiga afraadna waxa weeye safarka waa inaanu uga jeedin xeeladaysi oo wuxuu doonayaa qofkan inuu wax cuno ama xaaskiisa u galmoodo meel buu yaro baxayaa intuu gaadhiga eriyo kadibna soomkiibuu sidaa ku jebinayaa ilaahay subxaana wa tacaala lagama hoos tusi karo ama lama khiyaamayn karo qofka isagaa safarkaa soomka loogu xalaaleeyay inuu cuni karo bisha ramadaan dhexdeeda salaadiina gaabin karo waa safaruun ama safarkaasi dhibaataha ku lahaado ama yaanu ku lahaan dadka qaarkood oo casrigan iskaba badana waxaa jira wax mashaqo iyo dhiba aan kala kulmin safarka meel hadha buu iska soconayaa kurayl ma arkayo diyaarad buu ku safrayaa gaadhi raaxa leh tareen marka ama mashaqada hala kulma ama yuu la kulminoo safarkiisu raaxada ha lahaadee waa xaq buu leeyahy inuu afuro mar hadduu musaafir yahay masaa'ilka waxaa ka mida la xidhiidha qofka sooman iyo soomka qofka musaafirka iyo soomka hadduu qofkani go-aansado maanta inuu safro markii waagu baryey xaquma laha inuu jebiyo soomka ilaa uu safarka bilaabo magaalada ka baxo ma jebin karayo waxaa laga yaabaa inay kala duwanaato go-aanka safarka iyo dhaqaajintiisa ama fulintu oo isagoo safar go-aansaday inay u suuroobi weydaa suuragala oo wax ka xidhmaan marka soomka wuxuu jebin karaa marka uu safarku hirgalo ee safarka uu bilaabo si aanu cibaadadan u fudaysanin masaa'ilkaas waxaa ka mid ah qofkii maalan wuu afuray kolkaasuu diyaarad raacay waana iska badan tahay qoraxdaa sii dhacday markaa ayuu afuray diyaarad buu raacdayoo qoraxdii baa soo baxday ile markaa jooggeedu dheeraaday hawada u baxdo qoraxdii way kuu muuqanaysa waxaana laga yaaba hadday dhinacay qoraxdu u dhacayso diyaaraddu u kacda iyo galbeed in waktigay dhacaysa u dheeraado dhowr saacadood oo dambe inay diyaaraddii iyo qoraxdii wada socdaan waxba kuma waajib ahaa inuu afhaysto xilkii cibaadada wuu iska dhameeyey waktigii ilaahay ugu talagalee maalinkiina waa u soo dhammaado dee waa kii soo afuray diyaaraddan ka daba tagtay qoraxda lagula xisaabtami maayo taasi sidaa cagsigeed sidaa dabarogeed ama sida ka soo horjeedaa waxa weeye iyadoo meeshii uu ka dhaqaaqay afurkeedii uu dhow yahay
oo weli laakiin aan la afurin in yarna uu soo jiro nusu saacaba dheh ayay diyaaraddii kacday dee waa nasiibkii kolkaana qoraacdu intay soo jeedo ma afurayo ama hawada ha ugu dhacdo ama halka uu tegaya ha ugu dhacdo oo qoraxdu intaa ay soo jeedo sideedaba waxba lama cuno qofkii kari waaya waa halkeeda culimadu waxay leeyihin qofka bayloodkaana inuu isaguna xeeladaysi sameeyo maaha oo idhaahdo miyuu idinku dheeraaday qoraxda waktigay soo jeeday hoos baabuu yaro dhigayba dabeetana jooggeedii buu hoos u celiyey markii ay qoraxdii ka qarsoontay buu yihi cuna haddaba kaasuu haddana kor u dallacay kaasi waa taxaayul bay dhaha waa xeeladaysi marka taasi sax maaha qofku haddii uu maalan meeshaa uu ku socdo go-aansado inuu iska joogo 4 cisho iyo wixii ka sii badan 4 cisho wixii ka badan buu yidhi halkan iska joog magaaladii uu tegey markaa soomkii xaquma laha inuu jabiye wuu soomayaa oo waxa uu la mid noqonayaa dadkii halkaa deganaa sidaasoo kale waxa ah ardayda iyaguna waxbarasho goobta u tegey dee bilo iyo sanado iyaguna mar hadduu qofkaasi nagaadi meeshaa go-aansaday wuu afurayaa musaafir ma noqonayo masaa'ilka waxaa ka mid a qofka bilaabo soomkii isaga oo xaafaddiisii jooga maalin dhexdii wuxuu bilaabay maalan duhurkii buu bilaabay safarkii way u bannaan tahay inuu jabiyo kol haddii uu safarkii bilaabay ee lama odhanayo soomkii dhammaystir waxay culimmadu isweydiiyaan dadka had iyo jeer safarku uu ku badan yahay dadka qaarkood baa socodkoodu iska badan yahay safarkoodu labaa loo kala qaadayaa bay dhan kuwa hadduu qofkani uu leeyahay beled ama waddan uu kolna ka safro kolna ku soo noqdo oo beriga ah maalan intaa uu safarka ku jirana safarkiisu haba badnaadee soomkii wuu ka afurayaa oo salaaddii wuu gaabinayaa dee meeshii uu ka yimid marka uu tagana ruksaddii ma haysto maalan sanadkaba inta badan buu dee soconayaa kol hadduu meeluu degan yahay jirto intaa uu maqan yahay ruksad buu haystaa inuu iska cuno safarkiisuba ha badnaado laakiin waxay leeyihiin dadka iyagu aan meelba lahayn ee safarkuba shaqo u yahay maalan qofkan duuliyaha ama darawalkii gaadhiga ama doonida ama tareenka isagii iyo islaantiisii alaabtoodiiba gaadhigay u saaran yihin meeluu degan yahayba ma jiro kaasi waa ruksadu ma laha inuu afuro ee safarka dhexdiisuu ku soomaya masaa'ilkaas waxaa ka mid ah safarkii ka soo hadale soomka iyo bukaanka qofka bukaanka ana sharcigu wuxuu u saamaxay sidaa ilaahay aayaddaa uu ku sheegay suurat lbaqara waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar qofka buka ama socdaalka ee taraa ku jira maalmo kale ha soo qaleeyo ramadaanna ha iska afurabay aayaddu leedahay hadduu qofkii buko isagana waxaa u bannaan inuu iska afuro laakiin bukaankaasi waa inuu yahay mid dhibaata ay ka soo gaadhayso bukaan mashaqo leh oo dhibaata ay ka soo gaadhayso waa inuu yahay bukaanka qaarkii baan dee qofka loo tixgelinaynin inuu afuro oo wax yaroo ilig yaro xanuunaya iyo duray yaro haya iyo waxyaabahaasi wax mashaqo ahoo aan caadi ahayn ma laha mashaqadoodu waa iska sahlantay nebigana calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii waxaa la tusiyey dee qof suuxay gaajo daraaddeed oo musaafira waa kii lahaa laysa min albiri asiyaamu fi safar markaa sababta qofkii loogu xalaalaynayo loogu fasaxay inuu iska afuro waa marka uu dhibaato kala kulmaya cudurkii safarku laakiin sidiisaba kole hadduu qofku safro isagu xaq buu u leeyahay inuu iska cuni karo bisha ramadaan
cudurka inuu dhibayo iyo in kale muxuu ku garan karaa qofki dee wuu tijaabiyeyba qofkii waa tijaabiyey markaa wuu ku adkaado culays ku noqday ama dhakhtarkaaba uga digo haddaad iminka soonto mushkiladaasaa dhacaysa dhakhtar muslim oo aamina oo looga qaateena marka waa lagu xisaabtamaya soomkiina wuu soo qalaynaya qofkaas hadduu soo qalayn kari waana dee raashin buu bixin doonaa marka waxaad arkaysaa diinteenani fudaydka ay leedahay iyo sida ilaahay addoomaha ugu sahlay wixii ay kari karayaan baana mar walba lagala xisaabtamayaa marka intaasaynu maantana ku joojin dembigeen iyo kii waalidkeenba allaha dhaafo cisiyo sharafna allahayna siiyo soomkii cibaadooyinka o dhanna allaha inaga aqbalo cuduradana intaa uu haye allaha ka caafiyo inta kalena allaha ka duwo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam subxaana rabbika